iyadoo waxyaabaha aan laga maarmi karin ee gundhiga u ah aasaaska aadamaha uu kow ka yahay caafimaadku la'aantiina aan la noolaan karin ayaa cisbitaalka guud ee gobolka Togdheer oo ah cisbitaalka ugu weyn gobolada bari ee Somaliland isla mar ahaantaana ay dadweyne aad u tiro badan oo reer Somaliland u soo aadaan si ay caafimaad uga helaan iyagoo la tabcaansan xaalad dhaqaale xumo ayaa waxa ay dan moodaan cisbitaalka guud oo ay dawladdu gacanta ku hayso looguna talagalay in loogu adeego shacab weynaha ku dhaqan gobolka Togdheer iyo guud ahaanba gobolada bari ee Somaliland kadib tan iyo waqtigii la aasaasay marxalado kala duwan oo soo maray cisbitaalka guud ee magaalada Burco waxa muddo gacanta ku haysay hay'adda MSF oo waqtigaasi dadku aad ugu diirsadeen sida mutadawacnimada daacadda iyo hufnaan ay wax ugu qabanayaan dadka masaakiinta ee duruuftu soo xaraysay waxaanay ka diga rogteen cisbitaalka guud ee magaalada Burco sanadii 2013 bishii sideedad tan iyo waqtigaasi ay ka baxday hay'adda MSF cisbitaalka guud ee magaalada Burco waxa soo food saartay culays aad u baahsan kaas oo sababay in la dhimo shaqaalihii halkaasi ka hawlgalayay taasi oo loo waayay mushahar ku filan iyo in aanay helin bulshada gobolka Togdheer adeeg ku filan oo sida bulshada loogu shaqaynayaana ay ka muuqato habacsanaan aad u xoogani haddaba iyadoo ay sidaa tahay xaaladda guud ee dhabta ee ka taagan cisbitaalka guud ee magaalada Burco ayaa qaar ka mid ah dadweynaha iyo salaadiinta gobolkani Togdheer ay sida fiinta uga qayliyeen duruufaha ku gadaaman cisbitaalka guud ee magaalada Burco iyadoo dadweynahan si adag dhaliilo kulul dusha kaga tuuray mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyo kuwa cisbitaalka guud ee gobolka Togdheer kuwaas oo ku dhaliilay inay gabeen mas'uuliyadii ay u hayeen bulshada iyo kaalintii ay ka qaadan lahaayeen daryeelka caafimaad ee u baahan yihiin bulshada dadka danyarta ee ku dhaqan gobolka Togdheer kuwaas oo aan awoodin inay aadaan cisbitaalada gaarka loo leeyahay iyagoo intaasina ku sii daray in cisbitaalka guud ee dadweynaha ee gobolkani Togdheer bedelay goob ganacsi oo dadka masaakiintaasi lagu baadho xabada kaarjamiintana dadka lagu amro inay ka soo iibsadaan cisbitaalada gaarka loo leeyahay iyagoo aan waliba nasluugu adeegin si daacad ah laguna takooro sariirihii ay dadka lagu daaweyn lahaa waa siday hadalka u dhigeen iyagoo arrimahaas iyo arrimo kale oo tiro badan ka hadlaya dadweynahani waxa hadaladoodii ka mid ahaa siiba dhakhtarka guud ee gobolka Togdheer oo ka jirto musuqmaasuq baahsan oo aad u baahsan oo fiday maamul xumo gudihiisa iyo dibadiisa ku hareeraysan arrintaas ayaan doonay maanta inaan baraarujiyo oo dadku ka Somaliland ee ku dhaqan magaalada Burco iyo agagaarkeeda gobolka Togdheer arrintaas aan doonay hawiyaan waa waxyaabaha asaasiga ah nolosha bini'aadamku ay ku xidhan tahay waxa lagu talagalay dadka danyarta ah jilicsan iyo dadka aan isdaweyn karayn iyagu suuqa iska daweyn karayn maamulkii markaa waxa weeyaan imika shaqada dhakhtarku way taagan tahay dadka gudihiisa imika wax dawaa oo dadkaas ay ku qabaan bilaash ma jirto oo sidii hay'adii MSF uga baxday waxa ogtihiin inaanay maanta jirin adeeg bulshada la siiyo oo caafimaad hadday tahay mid baaris lagu sameeyo wax baarisa hadday tahay shaybaar hadday ay tahay wax la yiraahdo computer haddii ay tahay waxa weeye qashaafad qofkii waxa weeye midna ka heli maayo lacag qofkii sida ayaa arrimaha hela ama shaybaar hela ama qashaafad la saaraa ama computer hela qofkii aan lacag haysanina waxba kama helo halkaas dibadda ayaa bistiis weeye oo laga saaraa xitaa maamul xumadu waxay gaadhay dawadii in dhakhtarka taariis suuqa lagu iibiyo oo farmasiyada lagu xaraasho oo la keeno arrintaas waxa weeye waxaad iyo aad bay xanuun noogu haysaa dadweynihii magaalada ku dhaqnaa 80% dadku waa danyar dadku waxay u baahan yihiin caafimaad bay u baahan yihiin haddana maanta waxay dhakhtarkii ka socda ama Burco marka la eego waxa weeye waa arrin nasiib darro ah in dawooyinkii lagu talagalay dadka bukaanka ah suuqa laga iibiyo waa arrin aad iyo aad u liidata oo waxyaabo aad looga xanuunsado
maanta waxa weeyaan sidaan horeyda ku sheegay waxa loo baahan yahay dhakhtarkii isbitaalka guud wax laga bedelo oo almiino ama cid lagu wareejiyo maamusha haddii oo madax bannaan haddii kalena waxa weeyaan magaalada dee ganacsato haysu timaado iyo dadka wax haysta ilaahay wax siiyey oo dadkan isbitaalkan arrintiisa ha caawiyaan oo wax ka qabtaan maamulkiisa dowlad maanta loo cawdo oo isbitaalkii guud waxyaabahaas uu baahan yahay wax ka qabanaysaana maanta ma ogin u soo jeedinayaa maamulkan caafimaadka sababtoo ah markii MSF ay haysay dhakhtarka wax waliba wuxuu ahaa lambar 1 buu ahaa daryeelkiisa iyo shaqaalihiisa iyo nidaamkiisu laakiin imika intii ay ka tagtay MSF waxaad moodaa waxa weeye in wixii dee mas'uuliyadana saarnaydba inay MSF raaceen baad moodaa sidoo kale markaad tagto ee qof xanuunsanaysa ama tala gabadh foolayso kale markaad inta geyso halkii waxa weeye dee lagu soo dhaweyn lahaa waxa weeye dee ka kaalsado ka horeeya ilaahadiya neerasto lagu soo dhaweyn lahaa lagu dejin lahaa waxa weeye dee wax lagu qaban lahaa adiga baa gaari ka soo dejinaya adiga sariirtii soo riixanaya adiga waxa weeye sariirtii jiifsanaya waxa weeye kiya ayaa loo bedelo maalinkii waxa laga qaadaa 20 kun shilin baa qofkii laga qaadaa sidoo kale qofka wax allaaliyo wixii irbad hadaa u baahato emergency waxa lagu qasbayaa inaad suuqa ka soo iibsato isbitaalka hada inta dawooyin baa la keenayaa waxba lagu soo rogayaa istoodaa buuxa hadana waxa lagu rooyaa lagu qasbayaa inaad ka soo iibsato suuqa irbadii qofka waxa laga yaabaa inaan sugayninba oo qofkii emergency uu yahay oo ama soo dhig baxay oo meel fog ka yimi ama waxa weeye dee xanuun kale oo dee saayid loo hayo marka kulay waxaan dee dhaliil u jeedinayaa dee madaxda isbitaalka anagu waxaan dee jecelahay waayo sidii hay'addu uga tagtay dhakhtarka waxaan u maleynayaa hadda waxyeello badan oo aad u badan oo maxay laga cabanayo ayaa taala oo waayo waan ogahay inay isbedel ka jiraan oo xabad kiniina haddii maanta aad u baahato qof aad geyso inaan lagu siin karay saddex si lagu oranayo maxay iibahaan hadda u baahatana aan laga iibin balse ay tahay inay iyagu maxay gaar ahaan u iibiyaan oo farmasiyada ka iibiyaan ama ay halka ku dhacdo dawadaas waxa weeye maanta waynu ognahay isbitaalkii guud ee magaalada gobolka Togdheer heerku ku sugan yahay si toosan waxaan ugu eedeynayaa wasaaradda caafimaadka lambar 2 iyada ayaa ka mas'uula halka lama arag heeray halka maanta heerkii gaadhay hore looma arag waxaan ka codsanaynaa si gaar ah anigoo baa qaba dhaafinaya wasiirka caafimaadka ka mas'uulka ana waxaan leenahay xukuumadda si toos ah waxaan uga codsanaynaa in isbitaalka iyo xaaladiisa maanta la soo farageliyo annagoo si aan mucaarad ahayn si aan mucaaradahay annagoo aan u hadlay oo weliba ah dhalinyaradii gobolka Togdheer weliba ah dhalinyarada ay deergaradkii annagoo ah isbitaalka aad iyo aad ayaan uga biyadiidnay waxaanu leenahay si toos ah isbitaalka hoos looga eego loo si kastaba ha ahaatee cisbitaalka guud ee magaalada Burco xaaladda uu haatan ku sugan yahay ayaan cidina u maqnayn ceelna u qodnayn balse waxa la sugaaba waa qurba joogta iyo ganacsatada u dhalatay gobolka Togdheer kuwaas oo ay muhiim tahay inay ka dhiidhiyaan duruufaha ku gadaaman cisbitaalka guud ee magaalada Burco iyo baahiyaha ay qabaan dadka danyarta ee ku dhaqan guud ahaanba gobolka Togdheer iyo gobolada bariga Soomaaliland waa Barwaaqo Aadan Maxmed